waxaan leenahay maxaa waalidka loogu samafalaya waxa loogu samafalaya baan leeyahay ilaahay loogu yeero waxa loogu samafalaya in la raali geliyo waxa loogu samafalaya in la ateeco waxa laaliyo wixii aanay ku jirin macsida ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa loogu samafalaya baan leenahay haday weynaadaan ama gaboobaan in la xanaaneeyo haday labada waalid midkood kugu gabooba ama labaduba ba ilaahay yiri waxay necbaadaan ha ku oranay hana dagaalin baa la leeyahay war fiican oo qura ku dheh u dhimriyo u jilicsano baa la leeyahay subhanahu wa ta'ala oo u naxariiso oo waxa tiraahdaa ilaahu labadayda waalidu naxariiso sidii iyaba markaan yaraaye taagta daraa ay soo rabeeyeen ay soo hayeen xasuusaba ilaahay leeyahay adigaba in calool lagu siday in lagu waday in xaar laga biinayay in lagu korinayay in aad oo jilicsanaan waxba qabsan karayn in lagu hayay adbata xasuuso iyaguna haday noocaan noqdaan hayba alla leeyahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay waxa loogu samafalaya in la dhowro oo la ilaaliyo in gacanta loo furo hadiyad nafaqo bil wuxuu doonayaa ha nabigu sallallahu alayhi wa sallam alayhi wuxuu tilmaamaya maxay tahadu tahabu hadiyadi sasiya nabigu waa jeclaanaysa waxba haysto dhan waalidka kuma baahnay waxba haystaa iyo waa kaas waa mas'ala kale waxa iska haysto iyo ku baahnaanin nabigu laakiin wuxuu ku leeyahay sallallahu alayhi wa sallam alayhi tahadu tahabu hadiyaysa siyabu nabigu leeyahay waa jeclaanaysa asma bint abi bakr waa taylahayd ilaahi rasuulkiisa iyo hooyaday baa timi wahiya raagibatun aw raahiba afaasiluha ma xidhiidhiyaabay ku tidhi nabiga قال نعم النبي صلوات الله وسلامه عليه حديث البخاري حتى هدي كافرين بالكويلين هداني وحبا يسنوا كافرين قاليين ويقولوا النفقة ولذلك بقى أئمة الفقه وحيلين النفقة ظهرت كل بويلين هدي باهين حتى هدي قاليين بيلين وحين لنا هي والد كم حين نقص مفالله وحين نقص مفالينا حتى هدي دنتان kuwa iyagu jeclaayeen ay xiriirin jireen inaynu xiriirino waxaan leenahay wax loogu samafalo waxa ugu roo waalidku intay nool yihiin in saa loo xiriiriyo haday dhintaanna kuwa xiriirin jireen iyo kuwa ay jeclaayeen ba in loo xiriiriyo in loo duceeyo haday geeriyoodaan wa ku nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam alayhi hadithki sahih muslim ka ku yaalay إذا مات ابن الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إنسان كهدور دنتو عمل كيسو واحد ما يكتاب كيسو صدح مويان صدقة جارية أو كتغي علم لا انتفاع سدو كتغي أو ولد صالح يدعو له النبي أما المفي عنه كتغي